waxaan caawa ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo jaartiga Alpha Trust waxaan leeyahay guul intaas dadaal ka sii badiya anoo hooyo Soomaaliyeed ah waxaan aad ugu faraxsanahay carruurta Soomaaliyeed ku dhibaataysan sida loo caawinayo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa kasoo qayb galo xafladda Alpha Trust oo ah dhalinyaro iyaga abaabushay oo dadkooda iyo dalkooda wax u qabanaya dad aad u fiican oo dadaalaya oo ku dayasho mudan. We're very happy to see Somalian people coming together in the interest of a greater cause. There are so many educated Somalians and students, and aside from being an event to raise funds for something that's very important, corrective eye surgeries, it also has been a valuable way to network. waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro oo ardaya maanta inay ka soo qayb galeen oo aad iyo aad u farabadnay kuwaasoo yacni aad u xiiseynayay wax qabadka Alpha Trust ayna ballan qaaday inay saacidi doonaan Alpha Trust iyo Soomaalida meel kasta ay joogaan. When you have Somali-led organizations, it is a lot less bureaucratic, a lot less systems involved, which means the money that you donate today to a Somali-led organization goes directly and efficiently into the hands of the ones that most need it. So I personally support organizations and events that sponsor organizations like Alpha. runtii aad baan ugu qiirooday markaan arkay filim meesha laga soo saaray caawa dad badan oo Soomaaliyeed oo wadanka ku nool oo isbitaalada jiifa oo intooda badanna lagu guuleystay indhaha in loo fiiqo. I think this is a perfect charity for a very good cause, and I'm hopeful for the future, and it will make a lot of changes. ilmaheena oo wadanka wax ku bartay oo dadaalkoodana tusay maanta maasha Allah ugu faraxsanahay waxaan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka meel kasta ay joogaan in dadkooda ay caawinaan guud ahaan fikirka dadka dhalinyarada mutacalimiinta ahaa iyo ardaydii aan isoo eersan aad iyo aad u qiimo badneed waxaana niyadda aad iyo aad kor ugu qaaday in dad badan oo dhalinyaro ah oo wax yaqaan ay jiraan oo raba inay wadanka wax ku taraan taasoo muhiimad u weyn leh ardayda dhigatay jaamacadan soo qaban qaabiyeen arintan aad u wanaagsan oo ahayd deeq aruurinta donation loo sameeyay dadka dhibaataysan ee Soomaaliya meel kasta ay ka joogaan waana wax loo baahan yahay aad iyo aad ugu faraxsanahay qayb weyn inaan ka qaadanayna insha Allah programkan waxa soo qaban qaabiyay ardayda dhigata ay hormuud u tahay Leila shaqo wanaagsan ay ka qabatay ayadii groupkeeda waxa la waa maasantihiin qofka markuu wax bartay ama jaamacad uu ka soo baxay waa wadankii hooyo waa qofka kaliya la dhigi karo waxa uu qaban karaa wax lagu farxo ardaydan waxaan leeyahay kulligiin aad iyo aad u maasantihiin aniga ku hadlay magaca Alpha Trust waxaan leeyahay waxa aad qabateen waa wax lagu farxo hoob dad kale inay ku daysan doonaan waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta iyo qiimaha leh iyo dadkii ka soo qayb galay